لله والصلاة والسلام على رسول الله. runtii xildhibaanka Jaandhe ayaa saahadu sheegay waxaan ku daraabaa wax badan ma jiraan maadaama uu magacaygiina ku xusay raggu markay isu yihiin asxaab inay wada hadlaan oo ay arrin aan ila ogeyn waliba gudido ayaa ahayd hase yeeshee waxa ii muuqatay inuu aan ugu talagelin murashax noqdo waa qofku murashax noqonaya waxa weeyaan sidii ay raggii ka horeeyayba isagoo ayagoo wataan alaabtoodii kii u imanayeen inuu yimaado bay ahayd isagoo team dhan wata oo aad moodaan saxaafadda dayma ka eegtaan mujtamaca daawanaya TV-gii dib ugu noqda albaabka markuu ka soo gelayay banaanka gaadhu ka degayay kamar dawladda ma socday ilaa uu soo gelayay qof doonay inuu application dhiibaa muu soo kaxaysan saxaafad dadna muu soo kaxaysteen maalintii khamiis noo yeena waxa xogiyuu waa ka telefoonkiisi waa ka xilli kasta waa laga qabay la kaalay anagoo asxaab baan nahay telefoon uu soo dhafan la wuxuu lacagtii waan wada wax dhibaatay bay dhaceen Jaandhe habeenimo la hadlo uu tagi lahaa uu dhiibi lahaa waxaanu ka raali galnaa publica in xisbigan uu xisbi lagu tartami karo aan cidna loo diideyn qofkuna waxa qurux badan inuu asagu shakhsiyan ani yiraahdo reerka lagu daba gabadaa ani adduunka waa ka mamnuuc wax la yiraahdaa annaga waa laga mamnuuc aniga waa la yiraahdaa raganimada qofka ay lagu soo baxaa laakiin mujtamaca lama geliyo khalkhal xisbigana waa lagu tartami karaa xor baan runtii loo yahay waxaan uga ka raali gelinaa mujtamaca in ma taqaanaa xisbigani uu yahay xisbi arrimihiisa dhexdooda ah iyo wixii khilaafaada uu xalilo waxaanu jecel lahay qof kasta oo wax tabanaya xaq uu leeyahay qofku tartamo qofkii wax tabanayaana xisbigu wuxuu leeyahay nidaam loo maro gudida qabanqaabada waxay ka mas'uul tahay arrimaha intuu shirku socdo waxaanu jecel lahay inaan cid kale afka xisbiga intuu shirkaas socdo wixii khuseeya loo daayo oo keliyata gudida qabanqaabada ayaa afka ku hadli karta saxaafadda soo sheegnaa wana mahadsantiin